رئيسل وزراء هلا مريم دسالن ayaa sheegay doorashadii shanaad ee lagu dooranayay xubnaha wakiilada shacabka ee heer federaal iyo heer deegaan ay ahayd mid u dhacday si nabadgeliyo dimuqraadiyada taasoo bilowgii ilaa maalintii cod dhiibashada ay aad u sareysay ka qayb qaadashada shacabku ra'isul wasaare hela maryan dasaalin ayaa waxa uu sheegay በምርጫው ዕለት ከምርጫው ጣቢያዎች መከፈት በርካታ ሰዓታት በፊት ጀምሮ በየጣቢያዎቹ በመቶዎች በመሰለፍ በፍጹም ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ድምጹን በመስጠት ፖለቲካዊ ብስለቱን በማረጋገጡ የተሰማኝን እርካታና ምስጋና በኢህአደግ አመራርና በራሴ ስም ለመግለጽ ወዳል shacabka Itoobiya oo aan loo kala eegin diinahooda mabaadi'da siyaasadeed ee aaminsan yihiin iyo taageeridda xisbiyada siyaasadeed ee ay rabaan ayaa ay rabitaankooda dimuqraadiyadeed iyo horumarka ku muujiyeen go'aan qaadashadooda shacabka ayaana maalintii cod dhiibashada saacado ka hor saf u galay cod dhiibashada iyagoo si asluub leh uga qayb qaadanayay doorashada anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ururka EPRDF waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa shacabweynaha reer ee sida asluubta iyo sharafta leh ee ay Itoobiyaanimadu ku dheehan tahay ooga qayb qaatay doorashadii ra'isul wasaare hela maryan dasaalin waxa kale oo sheegay in la sii xoojin doono howlaha horumarka iyo maamulka suuban ee dalka ka socda iyadoo la kaashanayo shacabka waxa kale oo sheegay inuu ku rajawan yahay inay sii socoto ka qayb qaadashada siyaasadda ee sida cad loogu muujiyay waqtigii doorashada waxa kale oo uu mahadnaqay dhammaan xubnaha ururka EPRDF iyo taageerayaashiisa isagoo ugu baaqay inay sii laba jibaaraan howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee guud ahaanba dalka ka socda waxa kale oo ra'isul wasaare hela maryan dasaalin mahadnaq ballaaran u soo jeediyay ururada mucaaradka ee sida firfircoon uga qayb qaatay tartankii doorashada waxaana ku tilmaamay guusha doorashada laga gaadhay inay tahay guul ay dhammaan shacabweynaha reer Itoobiya ay leeyihiin waxaana tilmaamay dawladda la dhisi doono ee xisbiga EPRDF inay ku dadaali doonto fulinta howlaha ay dani ugu jirto dhammaan intii xisbiga codka siisay iyo intii kalaba lana diyaarin doono qorshooyin lagaga qayb gelin doono ururada mucaaradka arrimaha siyaasadda iyo horumarka dalka waxaana ra'isul wasaaruhu uga digay ururada siyaasadda ee isku daya marna inay nabadda u hoggaansan yihiin marna dhexgala arrimo lid ku ah nabadgelyada taasoo hore shacabku u muujiyeen ururada noocani inayna wax taageeraha u qabin guddiga doorashada qarankana uu ku tilmaamay urur dhexdhexaad ku ah loolanka ururada siyaasadeed isla markaana si geesinimo ah u gutay xilkii iyo waajibaadkii ayna ku mahadsan yihiin hawshaasi ugu dambeyntiina waxa uu u riyaaqay ururada rayidka iyo ururada midowga Afrika ee kormeeraya doorashada guud ahaanba dalkeena Itoobiya ka dhacday toddobaadkii la soo dhaafay